دكتور محمد عثمان فضل والله بسوي بس كاميرا مسؤول قدمت المدرسة هي دكتور محمد عثمان فضل هي وحلا بتشر وقدومية حسب المعارض كوذا وكوصة حلي إلى أمة الشح حبيت كمشي كدور شوي كحركة لبدي شر مدحونا شو بدي شمال سعودي حلو قدومي سعيد سعودي وصحافة بنصوص صار والبيت وصبر دقيق عرفت هاسي محاسبة بيها وكيف صرت كوكرة محاسب الجودي ديال ما يصير سؤال wanaagsan weeyaan su'aal waxay la tahay dadka iyo mudada ay ugu leedahay weeyaan isagana in cid walba la weydiiyo anigu markii oo xisbiga wadani ii magacaabayay waxay la tahay xisbiga wadani waxay ugu magacaabay hawl ay markaa u arkayeen inaan khibrad badan iyo aqoon badan iyo u leeyahay muddo badan ka soo shaqeynayay dadkuna igu yaqaaniin hawsha Somaliland dimuqraadiyiinteeda iyo doorashooyinkooda ayay ahayd hawsha anu markaa waxaan u aqbalay waxaan u arkaa dalkeena yar dhismaya haddii beydmaayo ay arrin halbowlaha inay tahay inaynu iska saxano doorashooyinka oo ay ka saxanto hay'adda commissionka oo arrin halbowlaha ah oo ayaan u aqbalay waxaanan u arkaa inaan cadaalad iyo kartiba ku kordhin lahaa marka anigu sharcigana si aan u waafajiyo xisbigii waan ka risaan garay waxaan maleynayaa qofkii ugu horreeyay media iyo TV-yada ka maqasheen meel ka maqasheen uu risaan garay maadaama aan maar walba ka hadlo sharci oo aan ku taaganahay sharci la ilaaliyo anna waa inaan ilaaliyaa maradan ka risaan gareeyayna qof dhexdhexaad ah oo hay'adaas shuruucdeeda u hoggaansamaya ayaan ahaa sabab allaale sabab aan la iigu soo celiyo oo waliba madaxweynaha oo aanu isagoo mucaaradana soo wada shaqeynay muddo badanna dalkan aanu maartay dhismihiisa iyo dimuqraadiyadiisa ka wada shaqeynaynay inuu soo celiyo aniga waxay ila eg tahay inaanay gar ahayn khayr sharcina tahay sida ku qoran sharcigan uu madaxweynuhu soo raaciyay warsaxaafadeedka waxa uu leeyahay muddo 6 bilood waa inaanu qofka xisbiyaha lahaanin ama xisbi ku soo jiray adiguna waxaynu ognahay muddo dhaweyd inaad xilkii gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka waddanka iska casishay sidee soo waafaqay wallahi anigu 6 bilood sharciga horta waan akhriyay meel ay 6 bilood kaga qoran tahay qofkaas inuu aanu xisbi ahaanin sharciga waxa ku qoran in dawladdu shaqeynin inaanu xisbi xil ka haynin ayaa ku qoran maca xubinnimadii ayaan xataa isaga casilay si aan maaragtay aan aanan ugu farabaxo oo aanan sharciga wax uga jibin 6 bilood meel ku qorantayna ma arag warqadiisana hore ugu ma qornayn sharcigana meel kaga jirtaan ma arag haddii beydmaayo haddii sharciga dadka sharci yaqaan haddii loo geeyo la dhuuxo siday u qoran tahayna badanaa waxa weeyaan qofku marka meesha uu doonto waa inaanu xil kala haynin حتى مريك قاركود واحد نقطة هدي حل لو قاطو إنه حلكي كلو هي إسكع السلو مركا وحيلتها هي أنو شرعي إن الله استعماله قفديد شرعي وينو يونيفرسال نقطة وينو دوت كوردن والسنة هذا وينو سيدا أو معقول سن لو أديك سدا أنا مركا وان دمي وحي مركا لوجا بحنا هدانا وأركين إن سيدي سحاو دمينا ما نقلين لكن أساس أنا قايل دكتور ساعات شيكتاتو قبل مدحونا قوم بدل مسؤولية الحزب يجلس كل واحد سؤال يعني أنت لو كتير دعوي ما الأوران كلا وحي ما لقوا معنا كلا وكبر قيمة مدحونا يكون فيس إن النقطتين أنا دحنا حالة هاي إنه حزب جاو ما تفيم وحقلية لا يعني إن بدل ما كسر شقيني سوماليلاند وزير بنك صون بدنا عدي بيد معيو بوشة ريت كانوا بشقية دورشوي كذا كسر شقية وحنا تاجنا ما أنت تاجني برينا تاجنا دونا إن دولة مدية الدولة دا عرضك حبني هذه الدولة هذا الدولة نسي عدالة والإسمان وعدي بيد معيو الدنيا يعني الكوريو وأنا إذا كو أديجن أنا كو أديجن مدحون أنا كو أديجنين أيام تاجنا هاي حزب جنا كمان كمان عسلين تاريخ ذيدنا ما أن عدو كلا حضي أما أن قف بروفيشنال لبانا هاي قف كمل نو كشقين كرا
shalayto isagoo meel ka shaqaynayay meel kalena uu tegi karaa xilka sharciga meeshaa aad tagtay baa ku haysta commissionku waa hay-ad qaran oo sharci leh oo aynu u baahannahay oo la halbowlo kaga jirta korriinkeenna ma geedo loomana baahna qof la liicliicsado fikirka kale wuxuu odhan karayaa oo aad i weydiin kari lahayd ma laga yaabaa inaanaad u liicdeen haddii bahayd maayo haddii si kale lagu isticmaalayo haa uma liiceen sharcigeedaan ilaalin lahaa sharciga doorashooyinka xor iyo xalaala baan ilaalin lahaa sharciga inaan maalin la dhaafin baan ilaalin lahaa sharciga inaan qof kursi ku fadhiisan karin kordhisanna karin ayaan ilaalin lahaa de haddii intaa laygu ciddii diidaysaa iyaga u taallaa berri iyo maalin aan samaynaya gudoomiye soo noqnoqoshadan xubinnimada dareen noceebay kugu abuurtay ujeeddada uusa madaxweynuhu ka leeyahay maxaad ka dhadhansatay maxay walaa anigu waxaan ka dhadhansaday anigu iminka muddo intii xataa waddan iminka aan ku jiray sanadii barkii ugu dambeeyey wax kale kamaan shaqaynayn waxaan ka shaqaynayey in diiwaangelintu dhacdo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo in haddii bayd maayo dadku doorashada inugu soo socotaa xor iyo xalaal noqoto inaanay tii deegaanka oo kale inaga noqonin inaan doorashada la boobi karin diiwaangelinta miisaanka iyaga yani dadka ugu badan ee ka shaqaynayay baan ahaa internationalkaanu kala shaqaynay commissionkan kala shaqeeyey xisbiyada saddexda xisbi baanu ka wada shaqaynay anugu mar walba waxaan u taaganahay in aynaan qaadi karin maanta qarankeennu qaadi karin doorasho mar kale haddii beedmaaya cadaalad darro ku dhacda wixii aynu kaga digtoonaan karno iyo kulligan xil ina wada saaran haddaynu media nahay haddaynu madaxweyne nahay haddaynu qolan madaxweynena qofka sharciga hayo weeyaan waqti resignation baa waqti ka horreeyey waqti ka dambeeyey aniga waxay la tahay hawl ka badan baan commissionka iyo qarankaba uga qaban kari lahaa halkaa iminkana waanu taaganahay oo waan qaban doonaa ilaa hadda waad taagan tahay xubinnimada commissionka may taasu xisbigay u taallaa anigu taasu xisbiga waddani bay u taallaayoo xisbiga waddanino waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in doorashada waqtigeeda ku dhacdo in haddii beedmaayo waqtiga aan dee la sahlo sidii ugu muhiimsan iyagaa riixayey iyagaa commissionka riixayey inay dhacdo marka iyagii wallahi u taallaa anigu laakiin waxaan u taaganahay in haddii aan dibadda joogay haddaan gudaha joogaba waxaan u taaganahay inaan doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo aan dowladina kursi ugu fadhiyin kordhis ma aaminsani oo ma aaminsani doorashada waxaan u taaganahay inay xalaal u dhacdo oo waxaan aaminsanahay dadku inay wada sinaadaan oo waxaan aaminsanahay gobolladu inay wada sinaadaan haddii taasu waana la igu yaqaanaa oo waxay la tahay waxaan u cusubaan maanta aan sheeganayo maaha marka anigu dee haddaad soo ururiso intaasumay dee noqon karaysaa wax laigu diidaya wax kale igu diidaya markaa ma gudoomiye iska aragteen arrintan mas-uuliyiinta xisbiga aad ka tirsantahay waddani xisbigaad ka socotay waddani xisbigii soo magacaabay iyagay u taallaa ka shiraya wixii ka dambeeya ama wallahi way ka shirayaan maanta go-aanna way ka qaadan doonaan waana u xor haddii ay dantu tidhaahdo haddii dee madaxweynaha isagan sharciga u dhiibanay isagaa qalinkii haya hadduu laba jeer soo celiyey waxay ila tahay waddani sida ugu macquulsan buu ka yeelayaa marka imika maxaa ku qorshaysan aniga waxay qorshaysan in aan halkii aan qaranka uga shaqayn karayba haddaan waddani ku noqonayay haddaan independent u shaqaynayaba waxay qorshaysan tii aan ka shaqayn jiray inaan ka noqon inaan ka shaqaynayo